habeen wanaagsan qodobada wararka idaacadda kulmiye caawa ay idiin hayso waxaa ugu waaweyn goobo ganacsi oo ku basbeelay dab maanta ka kacay inta u dhaxaysa isgoysyada banaadir iyo soobe ee muqdisho al-shabaab oo dadkii ugu badnaa ka afduubtay deegaano hoos taga degmada xudur ee gobolka bakool dowladda Qatar oo Soomaaliya ku wareejisay gaadiid dagaal oo loogu talagalay la dagaalanka al-shabaab ehelada wada bajaaj shalayna lagu dilay muqdisho oo dalbaday in wiilkooda uu helo cadaalad dad lagu weysanaa weerarkii ka dhacay galbeedka Nairobi oo la helay iyo FBI-da Mareykanka oo sheegay inay gacanta ku dhigeen nin weerari lahaa aqalka cad ee Mareykanka Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad. waa khamiis taariikhdu waxa ay tilmaamaysaa 17 bisha koowaad ee January sanadka 2019 caawa waxaa noo waramaya Axmed Maxamed Ibrahim. mahadsanid Cabdullaahi Xuseen Canshuur. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Habeen wanaagsan dhageystayaal. warkaasi oo dhan goobo ganacsi ayaa ku basbeelay dab maanta ka kacay inta u dhaxaysa isgoysyada banaadir iyo soobe ee magaalada tan muqdisho farxaan maxamed xuseen ayaa warka faafahintiisa inoo sii ambaqaadaya toddobaad gudihiisa markii labaad ayaa muqdisho dab ka kacay goobo ganacsi hanti taalay ayaa ku basbeelay dabka maanta ka kacay goobaha ganacsi ee ka soo horjeedka wasaaradda arrimaha dibadda oo u dhow isgoyska banaadir ee muqdisho ayaa ka dhashay sida dadku malaynayaan koronto balse ma cadda dukaanku dabka ka bilowday iyo kuwo kale oo u dhow ayaa dhammaan basbeelay waxaana dabka oo xooganaa durbadiiba goobta gaaray dabdamisyada magaalada ka howlgala mid ka mid ah ganacsatada goobaha gubtay ayaa warbaahinta ugu sheekeeyay khasaaraha ilaa iyo xilligan ay og yihiin waa dab waaye aniga dukaankan sagal balanbiraan leeyahay maamulahaas dukaankaan ahay marka dab baa ka kacay dabku wuxuu ka kacay qaybta gadaale ee saan qiyaasayno iskoolka ah kushiinkiisu ka kacay marka guud ahaan wuu qabsaday dhismihii oo dhan waa baaba'shay haddee wixii ilaahay qadaran baa dhacaya waxba kama badbaadin waxaasaa arkaysaan waaye hool dukaamadii oo dhan dukaankayga carwadii ku dheganaa dukaamadii ku dheganaa harqaanadii kulli waa baaba'een dhismihii oo dhan waa baaba'ay wallaahi haddee waxaan ku qiyaasi kara male because aniga kayga oo kale waa qiyaasi karaa khasaare aad iyo aad u weyn waaye ilaahay subxaana watacaala aan naga samata baxsho dabka muxuu ka bilowday wallaahi dabka uu ka bilowday dib baa laga soo sheegi doonaa baaritaanka bacdi laakiin waxaan qiyaasaynaa qaybta gadaalo oo iskoolka naga dambeeya uu kushiin ugu yaallo halkaan dabka yimid aan qiyaasaynaa laakiin ilaahay baa og waa khasaare weyn oo baahsan waaye annaga ma khasaare nafeed ma jirto laakiin hantidiisa waa baaba'day guud ahaan gurigana waa baaba'ay hantidina waa baaba'day marka ilaahay noo yasir insha Allah muddo saacadaha ayay qaadatay in dabka lagu guulaysto damantiisa waxaana sidoo kale hakad galay socodka gaadiidka iyo kan ganacsi ee wadada banaadir ilaa soobe gudoomiyaha degmada hodan ee ka tirsan halka uu dabka khasaaraha badan geystay ayaa keenan la hadlay waa maasantiin si aad u jeedaan khasaarahani waa mid aad indhiina ku arkaysaan waxa uu ka kacay sidaan xogta ku hayno koronto goobta rasmi ay korontaas dabkeedu ka kacana ma hayno markii dabku kacayna dadku waxayna soo gaarsiiyeen in dab kacay annaguna waxaan dalabnay gaadiidka damiska qaybtiisa gobolka banaadir iyo qaybta shirkadda walaac badan ayay qabaan ganacsatada suuqyada magaalada muqdisho kadib jimcihii oo uu dab ka kacay bakaaraha iyo maanta ay goobo ganacsi ay ku gubteen meel u dhow isgoyska banaadir al-shabaab ayaa dadkii ugu badnaa ka afduubtay deegaana hoos yimaada degmada xudur ee gobolka bakool yuunus duraan cali ayaa warka faafahintiisa inoo haya wararka naga soo gaaraya deegaanka ceelgaras oo hoos taga degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in ku dhawaad 60 qof oo dhalinyaro yar ah laga afduubtay deegaanka waxaana afduubka lagu yeediyay dagaalamayaasha shabaab 60 kan dhalinyaro oo u badan arday sida aan wararka ku helino ayaa waxa la sheegayaa in al-shabaab ay dhalinyaradan ka afduubteen dugsi ku yaala deegaanka halka qaar ay ka wateen xaafadahooda gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA
mid ah ayaa waxa uu xaqiijiyey afduubka dhallinyaradan wuxuuna ku eedeeyey dagaalamayaasha shabaab isagoona sheegay in dhallinyaradan yaryarka ay al-shabaab afduubteen ay gaarayaan 60 qof garas iyo tiilo iyo aagas oo dhan ay haysto marka hadda waxaan ugu maqaalaa in waqtiyadan ciyaalkii yaryarka ahaa meesha ay ka aruurinayaan meesha geynaan lama yaqaano marka dhibaatadaas waa ka jirtaa deegaamada qaar dhabkaas waa ka jiraa waqtiyadan ba arrintaas waana soo gaaraysa ilaa dhowr maalmood arrintaas dhabkaas waana soo gaaray ciyaal oo meesha lagala cararay gobolka degmada Xudur soo gaarsay waa jiraan meelo kale qaar oo la cararay waa jiraan marka dhibaatooyinkaas waa ka jiraan waqtiyadan nimankaas ayaa haysto ceel garas iyaglu nawaaxigaas tuulooyinka oo dhan ayaga haystaa anaga hadda waxaana soo gaartay ilaa 60 meel 20 meel 40 60kaas ayaana soo gaartay waana ka badan intaan u malaynayo waa aruurinaan ilaa hadda ilaan arrintaas waa ku jiraan kama harin waa wadaan kolley biyaalkaas in hadda askarayaan mase ay hadda waxay ayaga sameynayaan dhibaatooyinkii dalka lagu dhibaateynayo inay marka rooba nimankaas daayirta ayaa arrimahaas ay geliyeen dadka iskarxinay dadka baabinay waa ayagunba haddana kolley intii horunba ka daba geynayaan si kolley hadda ay ku wadaan magaalada laga aruuriyey tuuladaas eergaras ilaa tiiglow ayaa laga aruuriyey magaaladii dadka taa waalidiinta qaar waa la xiriiray markii ay yaalkooda inay meesha inay diidaan ay rabeen waa la xiriiray si nagu maqaalaa waa loo hinjibay waa lagu dilaa haddii kale cunugaada keena layidhi qaar saasa lagu geeyey qaarna waaba la saafay saafa lagu haystay marka saas way arrintaas noo sheegay saas way gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin ayaa sidoo kale sheegay in meelaha ay ka joogaan dagaalamayaasha shabaab gobolka Bakool ay ka wadaan aruurinayaan dhalinyarada yaryarka ah ay ku nool deegaanada al-shabaab ka haystaan gobolka Bakool wuxuuna sheegay in aruurinayaan dhalinyarada al-shabaab ay u gulleeyihiin sidii ay ku dagaalgeli lahaayeen dowladda Qatar ayaa Soomaaliya ku wareejisay gaadiid dagaal oo loogu talagalay dagaalka ka dhanka al-shabaab Ali Ibrahim Cabdullaahi ayaa warkan faafahintiisa inoo haya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dowladda Qatar kala wareegtay qaar ka mid ah gaadiidka nooca gaashaaman oo loogu talagalay ciidamada militariga Soomaaliya tirada gaadiidka ay maanta dowladda la wareegtay ayaa waxa ay gaarayeen ku dhawaad 68 goobta ay munaasabada ka dhacday ayaa waxa ku sugnaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo taliyaha ciidanka xooga Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe sidoo kale waxa madasha joogay mas'uuliin ka socday dowladda Qatar wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dowladda Qatar uu u mahad celinayo taageerada ay mar walba garab taagan tahay Soomaaliya iyo gaadiidka nooca gaashaaman oo maanta ugu deeqday isagoona wasiirka sheegay in gaadiidkan ay ahmiyad weyn ay u leedahay wasaaradda gaashaandhigga isagoona sheegay in dagaal adag ay la geli doonaan al-shabaab maanta ay nagu taageereen qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan runtii waxay tahay taariikh la miilaabana qalubteena aysan ka tirmeenin insha Allahu tacaala waxaana filaynaa ama rajaynaynaa dalka walaalahan ee Qatar in taageerada maanta ay muujiyeen ay sii wadaan si annaga aan u gaari lahayn hadafkeena oo ah in sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed ay lahaan jirtay ay ku soo laabato gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana waqtigii waxa la gaaray laga adkaan lahaa dadkii dhibaateeyay ama dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee runtii mar walba ee u taagan xilliga aan iska dhicin lahayn ee ummaddan Soomaaliyeedna dhibaatada ay ku hayaan ku dulqaadi lahayn ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay diyaar u yihiin ayna isku diyaarna u yihiin ayagoo oo maanta haysta hogaamiya taliye runtii khibrad u leh ee arrimaha ciidanka runtii waxaan filaynaa waqtiga dhow
inaan gaarno ama aan gaarsiino shacabka Soomaaliyeed ee waxay ku farxi karaan ay niyadooda ay jeclaan doonto. gaadiidkan gaashaaman ayaa loogu talagalay inay adeegsadaan ciidamada militariga Soomaaliya waqtiga ay dagaalka adag kula jiraan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyadoona xusud ay mudan tahay in dawladda Qatar ay dawladda Soomaaliya ka taageerto dhinacyada dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. ehelada wada bajaajla ee shalay lagu dilay magaalada tan Muqdisho ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliya in wiilkooda uu helo cadaaladda. Allah u naxariistay Maslax Maxamed Cabdi Jimcaale oo kamid ahaa dhalinyarada bajaajta ka haysa ayaa shalay waxa isgoyska Hawlwadaag ee gobolkan Banaadir ku dilay askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. askariga dilka geystay ayaa lagu sheegay magaciisa Maxamed Cali Butco sidoo kalena waxa uu ahaa darawalka taliye ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed sida ay sheegeen eheladu. marxuumka la dilay eheladiisa mar ay maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayay ku dalbadeen in cadaalad uu helo wiilkooda maadaama uu dilay bay yiraahdeen gacanka xaq daranna. ehelada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay doonayaan in la soo qabto askariga dilka ka dambeeyay inta kadibna la geeyo cadaaladda si ay ugu qancaan. askari ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliyeed ahna ciidanka booliska Soomaaliyeed taliye-xigeenka labaad ee General Zakiya uu ahaa darawal ayaa shalay marxuumkaas aan kor ku soo sheegay ku dilay isgoyska Hawlwadaag sida darteed xaq darrada ah ee lagu dilay marxuumkaas in dawladdu iyo ciidankuba ay arintaas ay wax nooga qabtaan si waafaqsan qaanuunka u yeela dalka sidii wax looga qaban lahaa anagoo ilaa shalay sugaynay jawaabka sugaynay taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed oo waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa cabasho dawladda gaar ahaan booliska Soomaaliyeed oo uu ka tirsan yahay ninka wax dilay una ahay darawal taliye ku-xigeenka labaad ee booliska Soomaaliyeed General Zakiya sidaa awgeed haddaana odayaashii beesha oo halkan fadhiya cabashaan u soo gudbinaynaa dawladda federaalka gaar ahaan booliska Soomaaliyeed inay gacanta u soo geliyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo dawladdaba arrinta saas ku dhacayda oo maalintii la arkay dheyli dhacda oo dadka shacabka ka tabanayo dhibaatadaas tabanayo in si axadkaas ninkaas dilay ninkaas ku dilay isgoyska Hawlwadaag in dawladdu gacanteeda oo markaan ku jirin teeryashalana la lahay waa la hayaa haddoo saaca aan joogno 17 bisha aynaan weli gacanta lagu hayn waxaan rabnaa oo aan codsi u soo jeedinaynaa dawladda federaalka in ay ninkaas gacan xoog leh. darawalada ka xaya bajaajta ayaa in dhawaalaba waxay ka cabanayeen askarta ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwa ay ku sheegeen inay kala kulmaan handadaad dil intaba balse ay doonayaan in wax laga qabto arintaasi. dad lagu weysanaa weerarkii ka dhacay galbeedka magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la sheegay in la helay. Cabdullaahi Xuseen Canshuur ayaa warkan faafahintiisa inoo haya. sida uu daabacay wargeyska The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu daabacay in la helay dadkii lagu la'sanaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka D2 ee ku yaala galbeedka caasimadda Nairobi ee wadanka Kenya. xoghayaha guud ee hay-adda Lanqeyrta Cas ee Kenya Dr. Abbas Guuleed ayaa waxa uu sheegay in ay soo gabagabeeyeen baadigoobkii ay ugu jireen dadkii lagu la'sanaa weerarkii iyagu Al-Shabaab ay ku qaadeen galabkii salaasada galbeedka caasimadda Kenya ee Nairobi. Mr. Guuleed xoghayaha guud ee hay-adda Lanqeyrta Cas ee Kenya ayaa waxa uu intaasi raaciyay inay gacanta ku hayaan dad gaaraya 50 ruux kuwaas oo ay markii hore qoysaskoodu ay baadigoob ugu jireen. galinkii dambe ee galabnimadii salaasada ayay ahayd markii kooxo hubaysan ay weerar ku qaadeen hotelka D2 ee ku yaala xaafad ka mid ah ama dhacda galbeedka caasimadda Kenya ee Nairobi halkaas oo ay ku dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab dad gaaraya 22 ruux sida xoghayaha guud ee hay-adda Lanqeyrta Cas uu sheegay. sidoo kale waxa uu tilmaamay in 700 oo ruux laga soo badbaadiyay dhismaha Al-Shabaab ay weerareen. mas-uuliyadda weerarka oo ay dusha u riteen Al-Shabaab ayaa waxa ay ku sheegeen in ay hadafka weerarku ahaa ka jawaabidda go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
mahadsaned cabdulaahi dhegeystayaal warka habeenimo wuxuu idinkaga imaanayaa shabakadda wararka ee kulmiye duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono hay-adda FBI-da maraykanka ayaa xirtay nin la tuhunsan yahay inuu taageero kooxda daacash oo sida la tuhumayo qorsheynayay inuu gantaalada lidka taangiyada ah ku weeraro aqalka cad ee maraykanka ninkan oo lagu magacaabo heshar jalan teheb oo degan magaalada kamen ee gobolka georgia ayaa wakiilada FBI-da waxay arbacadii ku xireen meel u dhow magaalada atlanta wuxuu wajahayaa dacwad federaal ah kaasi oo ah inuu isku dayey inuu burburiyo ama waxyeeleeyo dhismo ay leedahay dowladda maraykanka isagoo adeegsanaya waxyaabaha qarxa FBI-da ayaa xirtay heshar jalan teheb isagoo isku dayey inuu baabuurkiisa waxyaabaha qarxa ugu bedesho nin si qarsoodi ah ugu shaqaynayay FBI-da maraykanka baariyaasha ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax tilmaam ah oo muujinaya in teheb uu ka tirsan yahay ururada argagixisada ugu dambeyntii haweeney reer Indonesia ayaa waxaa dilay yaxaas dhaqaale ahaan loo haystay kadib markii ay ku dhacday goobtii lagu dhaqaalin jiray Desi Tubo oo 44 jir ah ayaa la sheegay in yaxaaska ay ku quudinaysay beer ay ka shaqaynaysay halkaas oo si sharci darro ah loogu hayay xayawaankaasi yaxaaska oo culayskiisa uu gaaray 700 kilogram ayaa loogu magac daray Mary waxaana la sheegay inuu haweeneydan ka qaniinay gacanta iyo inta badan caloosheeda haatan yaxaaska ayaa waxaa la geeyay goob lagu dhaqaaleeyay xayawaanka iyadoona maamulka ay raadinayaan qofkii lahaa Mr Tubo ayaa waxay ahayd madaxa shaybaarka beerta ay ka shaqayn jirtay halkaasi oo Mary ku qoodinaysay dhegeystayaal warka habeenimo idinkaga imaanaya shabakadda wararka kulmiye caawana inta cidda uu sheegay waxay dib ugu heli karaan barta internetkana ku leenahay radio kulmiye.net dhegeystayaasheena jooga magaalada Cadaado radio Cadaado ay ka dhegeysan karaan dhegeystayaasheena Beledweyne Jeno radio Wadani dhegeystayaasheena Galkacyo joogna radio Hayaan ay ka heli karaan dhegeystayaasheena Mareykanka joogna waxay ka dhegeysan karaan radio Kala FM warkan warka xiga amaan Allah